asalaamu calaykum kulanti wacan idil ahaantiinba meel walba aad joogtaan kusoo dhawaada janalka rajadii fanka. janalka rajadii fanka mar waliba waxaad kala socon doontaan arrimaha fanka iyo waxyaabaha markaasi taagan. aad bay u mahadsanyihiin saaxiibada kusoo biiray subscribe na soo dhahay janalka rajadii fanka. halkan mar waliba si dhow waxaanu idinkugu soo gudbin doonaa arrimaha fanka iyo xaalad waliba oo markaasi taagan. sidoo kale waxaad nagala socon doontaan barta Facebook aan ku leenahay page-ka magaciisu yahay Hari ENT. halkaas oo aynu idinkugu soo gudbin doono muuqaalada iyagoo linkigooda wata oo si toos ah uga daawan kartaan barta YouTube. maanta waxaan idin wadnaa muuqaal ka duwan muuqaaladii hore. maanta waxaan idin wadnaa haddii Ilaahay idinka ka dhigo fanaanada qaaliladan oo tagsiilay noqotay, waxyaabaha ku kalifay inay tagsiilay noqoto, arrimaheeda iyo xaaladeeda halkay marayso, waxyaabahaasi oo dhan ayaan maanta halkan idinkugu soo gudbin doonaa. haddii ay tahay booqashadaadii ugu horeysay ee channelkeena, fadlan nagu soo biir, taabo calaamada subscribe-ta, gambaleelkana furo si aad uga mid noqoto saaxiibada halkan ku xiran. isku soo noqod wanaagsan daawadayaal. haddaba sida aynu la wada soconno, fanaanada qaaliladan ayaa waxa ay tahay sida dhammaantiinba saaxiibada ku xiran channelka rajadii fanka aad mara ka tihiin in ay tahay fanaanad magac iyo maamuus weyn ku leh bulshada Soomaaliyeed dhexdeeda. cod la igu tilmaamay wareysi lala yeeshay fanaanada qaaliladan ayay isoo gaarsiiyeen qaar ka mid ah saaxiibaday. codkaasi oo markaan dhageystay uu noqday wareysi BBC-du ay la yeelatay qaaliladan. ha ahaatee saaxiibada ku xiran channelka rajadii fanka iyo saaxiibadeyba kaleba ay ugu sheegeen inay tahay wareysi la yeeshay qaaliladan, taasoo noqotay tagsiilay. muuqaalkaasi ayaan waxaan jeclaystay in aan idinkugu soo bandhigo bartan si dhammaantiin aad u wada dhegeysataan, aadna uga falcelisaan bal inay tahay qaaliladan iyo qof iyadii ka duwan oo magaceedii oo kala wata inuu yahay, inaad kala ogaataan ayaan usoo qaatay muuqaalkan. sidoo kale anigu ilaa hadda ma fahmin qaaliladan inay tahay iyo in qof ku magacahu yahay, laakiin waxaa marag ka ah oo kala saari kara saaxiibada ku xiran channelkii rajada fanka. haddaba aan isla wada dhegeysano. marka aan shaqo ku waay waxay gashay inaan iska xamaalto on self reliant iska noqdo. gaarigan bartay, gaarigan aabaa iska lahay, gaari oo gear ah asahay, grifan 2 sanad iyo nus joogi. gaarigan iska gaday, markaan iska gaday kii aan wajeer la imaaday waan iska gaday, kii iyo wixii ka shaqeeyay isku darsaday, gaari cusub aan soo gatay, grifan ka soo guuray, marka wajeeraan soo dagay. haddana sanad iyo bar wajeeraan ka shaqeystaa. marka bal waxaad ii sheegtaa hawshan maaragtay gawaarida marka taxiga oo la wado oo dadka meelo kala duwan la geenaya, howl maaragtay lagu aqooni haweenka ma aha. marka adi maxaas leedahay markaa kuugu booriyeen markaa shaqada aad gashad? waxay ugu boori bilcanimada inta ka sokaysa wixii rag qabta inaan qaban kara, intay nimanka maraan inaan mari kara. markaan magaalada ka bilaabay liila yaabi jiray, naga gaari wada baa lii dhihi jiray. laakiin marka dambe caadi iska noqotay. hadda magaceeda saqiir iyo kabiir qaaliladan aan liiqana, tuulo kastoona aad qaali baa lii dhihi. haddana waxaan la mid yahay nimanka gaariyaasha la wataan la mid yahay. intaadna gaariga aad hawshiisa aadna gelin oo waqtiga aad yareed miyaad xiisayn jirtay markaa gaari wadid iyo waxaalaas? waan xiisayn jiray, kaareyga u ahaan jirtay, laakiin inaan taksi la noqdo ma inaan self drive iska noqdo ahaan jirtay. baabuurkeeya aan wato, laakiin maadaama sidaan rabay aan waay inaan iska xamaasho sidii idan aan baabuurle iska noqdo ay u qasabtay. maalimaha hore ood hawshan aad bilaabi jirtay ood magaaladan wajeer aad ka bilaabatay, maxaad kala kulmi jirtay dadka bulshada? waxaan kala kulmi jiray dadka markaan safar aada ama qof xanuunsan aan meel u doono oon wixii magaalada ka baxsan aan aada, dadka dhan waa ii safin jireen. markaan gaariga meesha keen yani dadka waa gacnaha iskii kala celin jiray ilaa hoon u yarsiiye ilaa iga dhaqaaqa dhaha waa ila yaabi jireen. naga gaari wada saswiya bismillah nala dabgedin ay dhihi jireen. laakiin markii dambe hadda caadi aan noqday. wayba kula yaabi jireen oo markaa lama aqoonin waxa weeyaan markaa gaari wada waxaan la arki jirin ay la eedba dadka. waxaan ogsoonahay magaaladan wajeer dad badan ayaa markaa ka shaqeysta gawaaridan oo taksiyaalka oo markaa lagu ganacsada. seebad ula tartantaa ragga kale oo laga yaabay waqtiyaal badan inay shaqadan kusoo jireen? inta yaradoon joogo horta dadka dhan reer wajeer lambarkay way wada haystaan. waxayna ku heleen hadda kahor gaariga ka horreey ayaan beec ku raadinay. magacii meeshaan ku qortay, gaafooseelan ku dhiji, telefoon lambarkeygan ku dhiji. sidii on gaariga hore beec ku raadinaya dadka dhan magacay wada qaateen. kii markaan iska gadon kan la imaadana dadkii wixii kastan ah, wixii caadi ah, wixii dhalinyara, wixii dhan lambarkay waa la haystay. markaan magaalada soo galay oo magaca gadaal ugu qortay gaari inaan taksiil yahayn ay wada maqleen.
stagena ma gala ani sida nimanka stage lama gala meel oo ii gooni oo ii qarsooniyaan qabaa bat markaan shaqeynaa telefoonaan ku shaqeeyaa waxaan aaminsanahay inaan nimanka ka shaqo badanahay dadka macbiilsha kuwa ee markaa gaarigaada isticmaalaan ragga iyo dumarka yaa u badan ma aqaan waxay ku noqotay bad kastankaynan iyo nimanka u badan 80%. dadka telefoon bay ku soo diraan meeshaad joogtaad ugu tagay telefoon hataa cidda haddaan dad joogtaa meeshaasaan jooga meeshaas igu imaao saasaan ku shaqeeyaa stage ma gelin adi habeenkaada lagu soo waca ma soo baxda waan baxaa anytime waa shaqeeyaa ani habeenii dheer ma qabin